كمان الحمد لله غناين إلهي نقول له مقالة عاصمة وأمانة ومدحونا كحجين كودو دحفر ديو حلقة جاي ساعة ما إلا بدن بندون كل جهلين وأنا تاسو كلا كردعين أدو بعضنا يمكن إلا جورجيسي وسكالوجين كريا مدحونا كحجين كو سكون دبر كيسي أجين مقالة دينو مقالة ده ومقالة إلهي تهين لو حمد نقو تذكرنا إن إلهي جرنسيين هيستان مقالة نبدون أو قيمة بدن iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala kol haddii halkan ku wada abuuray in ilaahay reer hargeysa isjeclaysiiyo reer somaliland isjeclaysiiyo oo qoloqolada iyo qabiilka iyo beelbeel ku tuuqa in ilaahay dhexdooda ka saaro waan aaminsanahay inay yihiin waxa somaliland dib u dhigaya markaan intaa ka imaado waxaan u ducaynayaa marka ugu horeysa ganacsatada maalkoodii halkan gashaday oo runtii wax wanaagsan sameeyey oo shaqo abuuray oo magaalada nala qurxiyey waxaan sidoo kale iyagana u ducaynayaa ganacsatada yaryar ee camirtay waayo moolku qolfoof ama dhismo iska maran buu ahaan lahaa haddii aanu 120 kaamiradood aan laga furi lahayn iyagana waan u ducaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala in ilaahay dadka usoo sakhiro oo reer hargeysa ay soo booqdaan moolkan curuba oo dabeetana ay wax ka iibsadaan si iyaguna kirada ay isaga bixiyaan qoladii maal gashatayna lacagtii ka gashay markaa ay uga soo noqoto waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanay gudoomiyaha ganacsatadii maal gashatay inuu galka seefta ka saaray oo cadeeyay in kuwa le meeshan ama meesha umadu lahayd baad qaadatay inuu cadeeyay in meeshan umadu leedahay anu siyaasiyan baan iska aaminsanahay in meelaha umadu leedahay la sii ilaaliyo asad xukuumaddu leedahay si ahaado waayo ummadaha adduunka marka dhaqaalahooda la eegayo waxaynu wada leenahay naga dhaxeeya oo wax qaaliya weeye marka in la ilaaliyo waan aaminsanahay marka inay qurxiyeen oo ummadu leedahay oo ay waliba mataqaanaa muddo iska bixinayaan lacagtii ka gashay ay ula soo noqonayaan dadna ummadu ay lahaanayso wax lagu farxo weeyaan runtii wax loogu mahadnaqana weeye qof ganacsada oo maalkiisa haysta oo iibsan karayay meel kale inuu meel ummadu wada lahayd qurxiyay shaqo ka abuuray wax waa runtii in la yiraahdo mahadsantiin weeye in lagu dhaliilo maaha waa mahadsantiin la yiraahdo muddo ka bacdina meeshan ummadu baa lahaanayso marka taasna runtii aad baan ugu faraxsanahay in gudoomiyuhu uu saafay waxaan doonayaa arrimo yar oo door ah inaan ka hadlo waynu dhismo qurux badan alxamdulillah laakiin waxaan ka sii jeclaan lahaa buuri ninkii jiray 120 ka meherood ugu yaraan oo 120 ka baabuur ee wataan la heli lahaa meeshii la dhigi lahaa milyan kale haddii lagu dari lahaa waxaan isleeyahay hoosta loo qodi lahaa dhul weyn oo baarkina ayaynu heli lahayn magaalada hargeysa mushkilada ku soo socota waxa weeye maalin dhow meel baabuur la dhigto la heli maayo si kastoo loo dadaalo si kastoo loo cararo si kasta oo aanu dadaal ugu bixino in baabuurta laga dhaqaajiyo wadooyinka ilaa la helo in la maal gashado ama la abuuro moolal waaweyn oo mool kastoo magaalada laga dhisayaa inuu yeesho meel baabuurta la dhigto adduunkana saasay ka tahay waxaa kaloo loo baahan yahay in laga fikiro ganacsiga halkaad fooq ka dhisan lahayd inaad dhisi karto fooq gebigiisu wada baarkina oo markaa annaguna imaka sharcigii waanu ka faraxalanay baarkinka insha allahu tacaala beri dhow iska iman doontaa in la mamnuuco wadooyinka inaad gaarigaaga dhigato ama lacag unbaad bixin ama gaarigaaga waddada dhigan maysid arrinta kale doonaya iyadana xusaa waxa weeye ganacsatada moolka noocana marka la dhiso alxamdulillah magaalada way caawinayaan laakiin waxaan doonaynaa inaan buurino in kiradu jabnaato waayo kiradu haddaanay jabnayn suuragal ma noqonayso dadkeen waddada laga soo xareeyo waa sababta dawladda hoose ay u dadaalayso suuqyadii yaraa ay lahayd ay markaa lacag badan u gelisay marka dad aragtaan dee suuqyo badan oo lahayn marka dib u dhis baan ku samaynay kiradu way jaban tahay markaa saas la mid ah in ganacsatada kale waaweyn ay u fikiraan in moolku uu yeesho meelo loogu talagalay aan ku hambaleynayaa in moolkan curubo uu ku yaalo qayb dhexe oo qiimuhu jaban yahay oo loogu talagalay ganacsatada yaryar marka saas oo kale halkan imika space weyn baa ku yaala sidii looga faa'iideyn lahaa in markaa ganacsatada yaryar looga abuuri lahaa meel yar ku ganacsan iyadana waan dhiirigelinayaa waxaa kaloo iyadana muhiim oo loo baahan yahay marka mool intan leeg la dhiso in la cagaareeyo oo si jeediyada wajahadihiisana meel u dhow oo qurux badan dhirtii ku habboonayd na lagu beero iyadana waan dhiirigelinayaa waxaan kaloo doonaynaa arrintii laga hadlay waddada oo waddadan waxay ku taalaa waxay ku jirtaa mashruuca imika aragtayna qaybta u socota galbeed wadhalka jees horumarta dhakhtarka dabadiisa laga qaaday waa ta dhamaatay tii dhakhtarka dabada maraysa waa ta dhamaatay halka yare suuqa dhaxay taala
مشروع عاسى كم تهاي قدراس كذي ولا بحية واحدة بعتوا شراء مشراء ولا سمينها لكن واحد الدراسات كل سمينا وادوك تيجي مقعدوا وحدن تهاي مركا حدان وطلعني مكحدنا مقعدوا نوع كلا قايسة مركا استدي بالهم سمينا بالماله لو تقول لها بابورتا هي أنت تشيران وقوسن كرنو سي مركا وضان لورنا ما يستر لكن مشروع عاسى كم تهاي بجد كذي ولا أنسحيي مركا أيضا نور ورياحبا وما بعنا إن هدي إن ده مهرنا نوعنا كلاين دسينا هدي قفك وأنت هنقول درسنا وده كوري أساس مينا وبلاسي contribution أو دعينا وقفك هدو أنت قبصنا هدي كنا عشور تيجوا هنسيو عشور تاني إن شاء الله تعالى كدي سنة مقالة وحنون أنت كقب حدونا دردارا عادية وعن مقالة إلهي نكو ينكو عبوري مقالة إذن كايسكالة ولد يجانيو معاير إيو مشكلة التعالى ويكب وينتهي ويكب أحد وينتهي وحيو بانتين جماعة ليسوق بصدق أنه وقت بدن إيو فكر بدن إلى فرق بدن وحين عندين علينا ومارتي وقرشيني وحنا وكارك تانو مديرون تشوفنا وقرف قرف ليني أن قارباي لهداين شقين خلا قبنا يو موادين أما العج هيدا الله سوق قاضي أدر عندنا الله ما سوق قاضي الله يا الله الله سوق قاضي متشرين أن قدومي أبنك وكالك فرديا مركب يجي هاي هدو يقصي بحيول lacag taas lacag u dhiganta ama ka badan akoonka dawladda hoose ku jirta marka waxa bangigana daana alaho adiga alaho umada alade wuxuu bangigeenu yahay gofandarkana uga mahadnaqaya lacagta taala inaga iskale oo cashuurteeni ana dhiga waana ka qaadanaya waana dhiganaya laakiin dee waxa la yiraahdaa marka aan warqad intaan saxeexo aan raado halkaas saasa dabeetana lacagta ay ugu lahaw 2-3 sanadood anagu meeshan ilaahay idinkii deyntii lagu lahaana waa ka dhamaynay anagoon deyn lagu lahayna waa idinka tegaynaa anagoon idinka dhisan oo idinka dhaqan oo idinka urursan insha Allah ta'ala ilaahay idinkii waxaan si doonayaa in wadaniyiin la helo wadaniyiin magaaladan la helo oo hagar baxaya la helo waxaan rabaa in la soo afjaro qoloqolada iyo qabiilka iyo qulunka dawada wali la sii hayo cali waraacada wuxuu ka sheekeeyay wax ku filan in lagu cibaaro qaato raabihii baabuurka cunayda inuu soo noqdo maaha inuu soo noqdo maaha noloshaas dooni mayno ma rabno inay soo noqoto waxaan rabnaa nabad waa laga yimitaa waa meel la maraya iyo halkaas isma laha ninka doonaya in dib loo noqdo dee waa yeelkadii kolle anagu laakiin kuma jirno kuwa doonaya in dib loo noqdo waxaan doonayaa hore loo socdo magaaladan iyo dalkan meel fog baa la geyn karaa muddo yaroo kooban lagu geyn karaa cashuurtiisa lagu geyn karaa dadka gaajada iyo fakriga laga saari karaa madaxdii waa tahay hor fadhideen kuwa hadda doonaya inay madax ka noqdaanna Somaliland aan dhisayn oo gaajada iyo fakriga la dagaalamayn waxba ta kan guri maayo dadkuna way ka hor iman doonaan dad la'aan oo mudan doona ninka u diyaarsan inuu caafimaadkiisa ku waayo u diyaarsan inuu isagu xoolihiisa ku waayo u diyaarsan maal ka doonayn xoolo ka doonayn hadiya habeenan ummadan u shaqeeyo doonaya ayuunbaa ka dabaalanaya waqtiga adag ee nagu soo socda adduunyaduna maalinta ka dambaysa waa sii adkaanaysaa dee adaygaa ninka madaxa u dhigaya ummadan ha u soo badheero ninkii aanu badheeri karayna ha iskaga joogo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu